wejigii labaad ee shirweynaha midnimo ay qabsatay beesha ugaadhihan ee degta waqooyiga gobolka Sool iyo waliba sidoo kale koonfurta gobolka Sanaag ayaa ka furmay degmada Sarmaayo waxaana ka soo qayb galay furitaanka wejiga labaad ee shirkani qaar ka mid ah simada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxgarad cuqaal aqoon-yahano dhalinyaro iyo haweenka kala socday deegaanada kala duwan ee Sool Sanaag iyo Cayn iyadoona ujeedka shirkani uu yahay sidii beesha deegaanadaasi ay uga wada hadli lahaayeen danaha beesha iyo turxaan bixin dhexdooda ah shirweynahani midnimo oo ah mid ballaaran isla markaasna inta uu socdo lagaga hadli doono arrimo badan oo beesha ugaadhihan dhexdeeda ah ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay furitaanka wejiga labaad ee shirkani caaqil cabdirasaaq xasan maxamed falaalug caaqil carab ismaaciil suudi caaqil cabdirashiid cabdi aabi iyo caaqil faarax muuse dhiil oo ku dheeraaday ujeedka shirkani waxa la tabanayo in la iska bogsiyaa loo baahan yahay in talada la wada qaataa loo baahan yahay in la wada tashadaa loo baahan yahay si ayna u gaadhno waxa aynu higsanayno iyo danta aan leeyahay si taa loo gaadho waa inaynu isu sanadnaa waa inaynu isu dulqaadanaa waa inaynu waqti dheer ku bixinaa dadbaa waxay leeyihiin ama laamin maskaxeena ku jira shirku waa dheeraaday shirku ma dheeraan hadduu doono 6 bilood buu soconaya sanad buu soconaya in ka badan buu soconaya ilaa aynu ka badano oo qof walba ku qancino inuu dadka inuu isku dhannahay ila haddii laga yeeri waayo aynu ugu dhaarano ونرى اسكو تنبرنا اسكو قبيبنا شكرا لنا وشيء سعونا وما عشر ما انتفرنا وتاريخيه الرسول على صور معي شركة ساسينا وسعونا وعام كريه وعنقو ولايها شركة طيح لبوها له غير وليد أغاري عن حيصة هي قليل كيسي iyo xuqaashiisii iyo isnimadiisii ay halkan fadhiyaan oo u fadhiyaan turxaan bixinta ugaaryahan kaasi waa mid aan annaga noo horeyno materiaalno kayla soo dhamaysano markaanu ka dhamaysano soomaalidu waxay tidhahdaa wadaantii geereeda kaafida mid kale ku darta kan markaanu dhamaysano anagu iridkaanu dhulbahanta ka gelayno waa garanayna dhulbahantaanu ma waxaan leeyahay shirka ugaaryahan haddii uu shir ugaaryahan yahay oo lagaga wada hadlayo dan ugaaryahan oo ay maslaxad ugaaryahan lagaga wada hadlayo oo dib u heshiisiin iyo midaan laga wada hadlayo shirka kaalada baanu leenahay يعور بيقولي مرحقنا وصعلا حقنا كصعلا ما كان مين فيني وأقول نعرف الوشي ماي ما توقت اللي وقري ugu dambeyntii shirweynahani midnimo ayaa waxa soo afmeeray isla mar ahaantaani hadallo muhiim ah ka soo jeeday goobtaasi garaadka beesha ugaadhiyahan garaad Salebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud anu kale markaa soo hortay joogay ugaadhiyaha isticmaal jooga badan baan yeeray غير محل يلا وهذا قوش ما بعد بينا هذا قوش أساسا اللي بعنا أنا كمل كوا بعد الطاولة هو أحبط كودين وخاطوه ودين وإسمه مسافر مفيد كنا منا بعد واحد خاطوه أنا فوتسينه خاطوه كم بدنا معي وهذه خاطوه لقى هذا يو هذا كلام مهمنا لكن علو كريلا يعي وده شيء الله ما يدرسه وده شيء الله ما يدرسه خطوة أنا أساسي كوش أنا عودني أنا أخوي سمعت على كامل فقلت له كوش عودنا الصوت ويله فأفتح هذا الجودان يقوى كما غنبا هذا ما دد أحرقه يخاطره وما كان يعمل فوحي يخاطره لديه marka taasuna bari waa ambigeeda waynu ka tashan doonaa wixii waa isku raacaynaa waa ka reebayiin shirki wuxuu gudayay faaskii labaad weeye horu u furnaa in laga hadlo wax la siraado oo ergooyinkii la keeno oo shirka sidii loo socodsiin lahaa laga hadlay nimaanta isugu nimi cidna la duri maayo nin diira iyo nin ogolba shirkana kolley haddaynu isu nimi oo aynu hawshaa qabanay oo danaha dhow tuurnay ee wuu soconayaa mid kale waa isweydiina waxaynu shirkeenu muxuu ka saabsan yahay
waxaa yidhi marka ugu horeysa waa turxaan bixin dadkaas shacabkaa oo dawlada ku dhex galeen oo aan heshiiska ahayn waa dhex yaaliin dadkaa la heshiisiyo waa turxaan bixin marka dee midnimaa looga gudbayaa oo dawarku sidaasuu ahaa warkaas siyaasad wax ka madax banaana ragga iska asaasay cidda maxamed somaliland baan xambaarsanayn puntland baanan xambaarsanayn khaatumo aanu ka midnahay baanan xambaarsanayn waa magareer wey magareer dhulmaantoo dhamana waa shabay sida la ogyahay qof majnuun ama waxba danayn mooyaane qof kasta uu ogyahay si kastaba haatee shirkani ayaa isagu ah mid sii socon doona waxaana bulshaweynta ku dhaqan deegaanada sool sanaag iyo cayn ay ka dhursugayaan qodobada laga soo saari doona shirkani cabdiraxmaan jaamac xaashi cabdiraxmaan wadani somsa t v taleex